فرق والله فرق بالله قرطة قرطة في موضع ما يدري حاجة تخرج بالله وجهك مثلا ما كده تشتك فرق لها هي أفكا ملحة لها muuqaalkaas aan soo daawatay mana ahan muuqaal been abuur ah kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo ah lagu soo gudbiyo barnaamijyo xiiso leh warar iyo bixino maanta barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa furiinka Xafsa iyo Rashka Boy arrintaas iyo arrimo kale oo badan intaan u gudgalin fadlan hadda ku cusubtaa channelkan subscribe saaro gambaleekana furo si uu soo dhaco waxyaalaha soo gala markasta hadda hornool joogtana muuqaalka like saar una sii share garay asxaabtaada waxaa saacadihii ugu dambeysay social media qabsaday muuqaalada la isdhex mariyay ee Rashka Boy oo soo duubay asiga oo farxad la qaadanaya jaceylkiisa cusub Rashka Boy oo hore u qabay Xafsa ayna muuqaalo isla soo wada geli jireen YouTube-ka ayaa labadii isbuuc ee ugu dambeysay wax muuqaal ah isla soo wada duubin taasoo shaki badan dhalisay furiinka Rashka Boy iyo Xafsa balse Rashka Boy ayaa arrintii shaaca ka qaaday oo cadeeyay inuu xiriir jacayl la wadaagay gabadhaas oo muuqaal soo duubay TikTok-ka ayaa dad iyo badan commentiga iska weydiinayeen maxaa ku dhacay Xafsa maxaad ku kala tagteen iyo arrimo badan haddaba arrintan ayaa waxay noqotay arrin lama filaan ah kadib markii uu soo bandhigay Rashka Boy jaceylkiisa cusub Rashka Boy iyo Xafsa ayaa ku caan baxeen muuqaalo lamaane ah ay soo wada geli jireen barta ay ku leeyihiin YouTube-ka dadyo badan oo aad u fara badan ay xiiseyn jireen muuqaaladaasna daawan jireen kuna madadaali jireen dadyo badan oo ku xirnaa Rashka Boy iyo Xafsa balse arrintii maalmihii ugu dambeysay waa isbedeshay oo waxa uu galay jawi madow arrintii iyo farxaddii ay muddo badan soo wada naawilayeen balse ugu dambeyn waxay sababtay inay kala tagaan Rashka Boy ayaana muuqaalkan soo duubay dadyo badan oo lama filaan ku noqotayna ay ka naxeen arrintan iyo kala tagan Rashka Boy waxaa sanadadii dambe kusoo badanayay social media khaasatan youtuberada Soomaalida ah inay soo wada geliyaan muuqaalo lamaane ah kuwaasoo dadyo badan kusoo jiitay dadyo badan ay xiiseeyaan inay daawadaan muuqaaladaasi dad badan ee aad u soo dhaweeyeen in muuqaalo isla soo duubaan dadka lamaanaha ah waxayna ku caan baxeen inay soo wada geliyaan barnaamijyo aad loo xiiso geliyo waxaana ka mid ah Atrisha Baadiye iyo Nuuridiin KL oo YouTube-ka muuqaalo xiiso la soo geliyay adna iyo saxaaf sidoo kale Rashka Boy iyo Xafsa ayaa ka mid ahay youtuberada lamaanaha ah ee Soomaalida ee aadka loo jecel yahay ee soo geliyay muuqaalada balse arrintii waa isbedeshay oo maalmihii ugu dambeysay wax muuqaal ah lagama haynin lamaanahan nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo ah lagu soo gudbiyo wixii cusub iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh fadlan hadda ku cusubtaa channelkan subscribe saaro gambaleekana furo si kuu soo dhaco waxyaalaha soo gala markasta like-tana ha ilaawin like-tu waa noo muhiim waana noo dhiirigelin arrintan iyo wixii kasoo kordha muuqaalo dambe ayaan ka samayn doonaa kuma sintii daawashadiina